aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa culimmada jamhuuriyadda somalilan ee gobollada iskaga timid ee caawa kulankan ka soo qayb gashay aad iyo aad baan usoo dhawaana ugu mahadnaqayaa sidii raggii horeba yidhi qiimaha ay ku leedahay culimmadu dalka iyo bulshada waa mid weyn oo dee waxaba la yidhi waa warasadii ambiyada culimmadu waxaan raacsana fikraday ahayd diintu waa asal dowladda iyo shacabkuna waa ilaaliya saa darteed qiimaha ay leeyihiin baanu kusoo dhaweynaynaa waanana ku qadarinaynaa culimmadu intii ay sheegtay waan ku raacsanahay sheekh cabdilaahi arrintii u ka mahmaahay uli laba midna kulmiyaan laga helay midna mucaaridka dardaarankiisii ahaa edeb iyo nabad iyo af wanaagsan ku tartaba ayaa noogol ah waana laga helay insha allah walaadii waa laga heli doona waayo dee ina tartama baa loo dhiso hadday tartankii joojiyaan iyo waana jiraynba markaa laakiin dardaarankaa nabadda ah in laga helo nin walba ugu baaqayaa nabadda inoodana qodobka labaad dalka abaaro badan baa kusoo noqnoqday dhibteedana waynu ognahay duca iyo tao ilaahay la baryaayo haddana camal baa laynaga rabaa abaari way soo noqnoqdeen maxaynu yeellabaa dee taale waxaan ku talinayaa dadka adduunka sekada inooga go-a somalilan ee diintii nagu waajibisay intayna waxaysa abaaraha way naga saari karaan gaala baryadeeda waanu kaga bixi karraa iyo bini aadmi dadkeena dhibaatada waa ka saari karraa sekadeenna haddaynu si wanaagsan u maamulano hay-addii sekada waa la sameeyey wasaaradda awqaafta haysa waa qeyb ka mid ah culimmadaan u daynay culimmadu iminka dhowr sana jirta oo arrintaa weli tallaaba lama qaadin sekada in la ururiyo oo sida loo ururinayo iyo sida xoolaha loo sameynayo dadka faqriga laga saarayo ilan dowladihii islaamka ahaaba sekadunbay kaga saareenoo waxay la tahay sekadu biyana way noo qaban karaan weli roobkaynu sanadka helnaa waynagu filaya haddaynu biyaha qabanno haddaynu dhulka markaa wax kasoo saarta macruulka qaybo kamida loo ogolaadana waa la qaban karaa markaa waxaan ku dardaarayaa culimadu inay hawsha sekada waddo u jeexaan oo ururkeedana noqdo wax loo daayo culimadu oo ay wasaaradda culimada hogaaminayso halkaa waan tabayaa taladiinii sanad walba way soo noqonayaan abaarahani cimiladii way isbedeshay allaa qadaray waynu arkaynaa berigii hore 10 sano iyo 5 iyo imika waa laba sannadood halkaa talada waxaan ka sugayaa culimmadu inay aada iyo aada uga dadaasho oo sekadaa loo rogo si dadka biyo loogu qaban lahaa calaf loogu beeri lahaa haddaynu adduunkaas geyno labada waynu ka helinaa tusaale qura eega burco allah u naxariista ninkii cabdi oo daahir markii la dhowr sano hala sameeyo seerada xoolaha laga ilaaliyo gobollada dhanba way diideen ragga diiday dadka diidayana qaarna caqli ma ahayne wuxuun baa lagu akhriyay shaydaaniya qaar haddana gaaray ka lahaayeen markii dowladda hawshaa waday laysma garab taagin waa lagu dagaalamay seeraha burco dad baa ku dhintay cabdada haruun koo dagaalamay maanta waxay noo tareenna waa loogi kii hargeysa raas baa laga soo saaray laascaabadkii loo qoday waa laga diiday culimmadu tallaabooyinka khayriga ee dadku badbaadayo qaybtooda ka qaateen inay dadka ka waariyaan inay u horseedaan wax danta qaranka gudaha ay ku taageeraan hadday ka aamusaan waa waajib ay ka gabadeen ama ay ka absaameen marka arrintaa abaaraha taladeeda biyaha koobka sekada loo ururiya ka dawa intaynu hay-ad baryayno ee qorshe la gelayo ee kiniisada wax laga soo ururinayo anigu markaan isla eego xisaabta caqliga adduunkaynu haysano way ku filan tahay weliba iyadoo rirmiga xooliis lagana kaashka dadka hayee magaalooyinka jooga way ku filan yihiin inay qodaan dhaman magaalooyinka waraabiya magaalooyinka oo dhan magaalada burciya ceergaabo mooye waa lagu haraaday biyo dhaweyn ma jiraan magaalooyinka oo dhan boodaha lagu dhaamiyaa meeli la gaadhaye laga soo dhaaminayo way soo dhammaanayaan biyo la qodaana magaalooyin adduunka ma waraabiyaan
hargeyso iminka milyan iyo barsi cagacagaynaysa ceel la qodaa waraabin maayo laakiin sanadkii roobka maraa hareeraheeda waa la qaban karaa boorama waa la mid sanadba jilaalkii baa la dhahaa degdeg ceel ha loo qodo kii hore ugu dhamaadana hala galo gabiley meel dhaamahoo la qabtoo la joojiyey ilaa iminka hargeyso way waraabin kartaa iyo boorama weli biyahooda buuxa markaasaa ilaa 3-4 kilomitirna ay ceelasha soo buuxiyeen meel buurin baa la qabtay markaa waa tusaale wanaagsan taa waa tasakada taa nabadgelyada ducadada in kala ku dara culimo maanta waxaa loogu cabsi badan yahay nin qur-aankii kala badiya oo fasiraya oo xaggu dowla u jeedinaya oo kula jooga ciidamada waa loo calaacaray dowladdana waxa koowaad ee saarteen waa nabadgelyada madaxweynena waxa uu koowaad laga rabaa waa amniga markaasaa diin la heli oo dhaqasho la heli amnigii wuxuu u baahan yahay halkii aynu wax ka dareenno meesha annaga gacanteedu ku habboon tahayna inaan anagu tagno meesha nagaga habboontihiina dee idinku aa nooga horreysaan culumay masaajidadii hadduu nin intuu mikrofoonka qabsanayo fidmo ka wado oo la odhanayo waa sheekh dee anagu gelibayna masaajidka idinkaa jooga masaajid nin khudbadaha iyo microfoon u tegi mayne idinka haddiina kaga toosan kii sheekha sheegtay ee dadka isku diraya ee fidmo kicinaya ee bannaankaa laga dacweeyana maxaa sheekha loola hadlay baana haysataa dee idinkaa nagaga habboon naga horreeya masaajidada rag baa microfoonka qabsado wax lixii fidmo ah ku hadla halkaa waxaanu idinka baahannahay waa idin raacaynaa waa idinka dambaynaynaa idinkaa warasatul ambiyaa ah waxaynu isku ogolnahay asalkii idinka haya annan waanu idku ilaalinaynaa dee walaalayaal walba maanta waxaan idinka codsanaynaa qaranka nabadgelyadiisa nala ilaaliya oo wixii diinta kusoo gabanaya dee nooga horreeya aan ku dabagalle ila idinkoo joogo anagu u baxsan mayno nin diinka akhriyaye sheekh tafsiir wada masaajid ku tegi mayne ama sheekh microfoon halkaa ka akhriyaya oo ummaddu waa dhegaysanayso oo waxay meel aynaan garanayn ku wadaa dee sheekh baa ku wanaagsan ka hortaga intayna odhan sheekh maxay dowladdu u sheeganaysaa culimada taana waa codsi oo waa waajibi taana waa idinka dambaynayna idinkaanu idin daba joogna 3 waxaan isla ogolahay in isku nimid qaranimada Somaliland dowladdu ha qabato qaranimada ha sugto dowlad adag oo dalka hore u marisa oo diinta dhista ha samayso oo ictiraaf doonta deena la doona walaalayaal xoog baa tihiin aqoon baa leedihiin xeerdhaa leedihiin deena la doona culimadu distoorka oo dhan qodob quray ka soo qaada 3 qodob baa jiro isku miisaana 3daa qodob distoorku waxay leeyihiin 3daa qodob afti shacbi baa lagu bedeli karaa labada gole ma bedeli karaa kaa diinta ka mid ah asalka kaasi wacan baa u haysa waxaa ku dartaa ka qarannimada Somaliland qarannimada Somaliland in la dhaqaajiyo in la doono oo la hubiyo mooyaane afti dad mooyee labada gole ma fargeli karo qof kale kama hadli kara waa la fulinayaa ama distoorka nagu taalo oo kaa diinta la raaciyey dee Somaliland qarannimadeedu dood bay u baahan tahay in adduunka loo sheegay inuu dadka ku tashaday oo sharciga tahay oo kaa diinta la garab dhigade dee iyana la doono walaalayaal la garab gala oo ka carabta geeya oo kuwa la saaxiibka tiina caalamka hada oo kuwa xamara aad isku dhex noqotay dee u sheegay runta si ummadan u kala noolaato ay u nabad gasho dee waxaa dadku ku hashiyay dee la fuliya oo mararka qaarkood ragga qaarkiisa u hadlaan dee yay noqonay dadka Soomaalidu walaalo dee walaalo waa noqon aniga xamar leeyma ogolaa inaan ka hadlo ilaa Soomaaliland ogolaato tiiba fulina distoorka ahay wixii dadka oo dhan taas la rabay fuliya ama caalimada sheekha ama siyaasiyaha kii taada firaana waa khayl wadan oo ummadiisu waxay ku heshiisay buu diiday oo wuxuu la mid yahay nin diiday qodobkii diinta ee sheegtay waa tay nabadda ku joognaa waa tay ku dhisanahay taa in distoorkii lagu heshiiyey wada raacno oo inaan qofba qodobka isaga anfaca aanu ka qaadanin labada qodob soo jeeday waa iska codsanayna wixii aad waana keentaan waan iska ogolahay waa idin ixtiraamayna waa idin ka dambaynaa waa asalkii baa idinku haysaan cid idin ilaalisa qodobka ugu dambeeya dadka waxa ka waarisa sidii la sheegay halkan ninkii gooriye ka hadlay waxa soo baxay technology nin waliba hadlaayo dee dadka culimada ah ama mas'uuliyiinta kale ee ah
intuu fagaara iska taago qof ka soo horjeeda wuxuu dooro ku odhanaya ee aanu diintu bannayn ee aanu dastuurku bannayn ee aanu shareecadu bannaynin dee waanada iyo wax maqalka idinka hadalku in guriyada ka hadla si aan dadku dee isku dhicin culimada waa mahadnaqaynaa waa u hoggaansanna diinta islaamka inaynu ku dhaqaano oo ku dhimanana qof walba kow xilka ay saareen waa diinta ilaali dastuurka ilaali diinta ilaali baa ka horeysa waana xil saaran oo ilaahay iga xisaabtamayo oo aakhirada iga soo horeysa ma mid bini aadamkiga sugaayo taana ilaahay waafajiya aniga waa ku dadaalanaya inta la shaqaysaaba dee walaalayaal idinna nala hawlgalo qaranka nagala ilaaliya aad iyo aad baa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu